بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغيارتو دي السلام يا مالك الصجوكتان وصاحبكي عبد الحكيم ماستك الصور دوادو والعليال. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما هدان قالوا بكرا يا مدين تيدا معان ايان كبيحي كرا وموضوع انك هالي ربو عاوة كلاب هاوس قبضو iyo rag ku sheekeysanayo ayaa laga soo qabtay cod waxayna ka hadlayaan waxyaabo aan afkayga hadda aan karin oo afkayga aan soo marin karin oo qof muslim afkiisa uu soo marin karin. hablaas waxay u badan yihiin waa reer Somaliland waxyaabaha lagu haysto oo markasta lagu xiro ninkii ahaay coldoon waxa kamid ah waxyaabaha noocan oo kale taas sidee uga hadli kartaa وانا دين كبح وين waxa weeye marka hablahaasi hargeysa ay joogan waxa ay ku hadlayaan hadii aad dhageysatid waxa waaye runtii wala yaabi doontaan waa gaalnimo cad oo ay baneysteen oo ay sheeganayaan inay diintii ka baxeen oo diintii aflagaadeynayaan oo nabigeeni nabadgelyo xal isku kasa ahaatee sharafta badnaa ee aflagaadeynayaan haddaba yaan hadalka idinku daarin waa kana ee bal dhageysta ilma adeerayaalow adinkoo yacni maskaxdiina dejinayo tartiib bal u dhageysta muuqaalkana dhameysta please-na waxaad ka codsanayaa inaad sii share gareysaan oo Soomaali weyn aad u qaybisaan meel walba aad geysaan bal dhageysta waa kana anigu diinta waan ka baxay waxaan ka baxay diinta waan ka baxay waxaan uga baxay markii aan yaraa ayaa sheekhi ii dhigi jiray quraanka oo waliba kalaab haw soo galaan arko the only diin oo dadka disho markay ka baxdo diintan waxaan yana qabsado laakiin diin ma aha ilaahay wadankeena ka bixi maxaa u tagtay u haystaan maxaa nabiga ayaga ugu tagtay u haystaan nabiga baqtiyo ka tashanay soo waad khuraafaad hal looga soo baxay hal war waxaan aaboodii awoyaashad ma dadka soo dili jiray maxamed waxaan ka badanay waa ognahay inuu nabigu dad qalahay waa jabjabkiisa leelada oo diiga balaay soo arkay waa jabjabkiisa afyaashu waay nafka muudikala leeladii inta joogta Leila Shuba dhilla soo fuul gabadha jecel oo sheegana waliga dhigama tagay ma leeladii maanta aan ogaa soo fuul anaa ku caayay sababta nabiga u soo saarinaysa naagnimadaada waa ka tagaa wallahi abuse amba wasa leelada horta maanta aan ituurta ma hoo nahay abuse nabiga aan siirka ilaa hargeysa sheegsana siirkiga ku dhex jooga cid wax iga qaadaysa ma jirto 9 cod duubta dilooyin talisa dhilla soo fuul adigana sheekada ka shaqeystay afar wadaadi dhexda u gelisaa alla maxay taasi fito laga waso ka dharigtay ana horta wadaadadani awal waxa haystaan garan waay moogtay naagaha kula joogaan taasi kanay wax wasaanay maxay ku hayaan horta ii sheeg bal awal ma maqashaa maxaa tira baan hatrey wadaadada waxay ku qabaan garan waay naagahani talisa way baxday mitaas laakiin la soo saar Soomaalida dhammaan waxaas nabiga yare jirka fuulay soo saartay nabigooda yare oraya soo saartay wara muqaddisaana ay muqaddisaadkooda Allah ku taalo may de ka daatay walaal wara maxaa marka la ixtiraamay kibraan wallahi billahi been wal wuxuu ku sheegaa dhageysa king Soomaaliya kulma hadli moogta George ما يدهن دين مقدسات كأنها مقدسات كعينة. جوجو هجيسي على قرادنا أدميا. أنا معي. ورانا دقن تكتير هالإيه ما دمها ما عليك قاعد كرا. واش بريجا أتنام. Sorry أرني كده please. أرسوما أنت كمان حبر يونس يا كده هاي مجال. ورويدا فترة دي بس أرني
nebigaaga intaa ka daawo dhexjirka kuugaya intaa ka daawo aamus naagaa laga hadlaa عرفتنا الدلاء عرفت كي تنول الدلاء إن شاء الله تكيه كنول يا واي عرفت ماشي صار وانا قانا مش تنول يا لو بلوغ لا والله nebigaaga dhexjirka ku jirtay nebi oo sharafta ama ka qurux badan waxa ka udkoon badan nabiga adigu ka sharaf badnaa tasawirkeeda qaata wanaag fool xun gaalnimo أنا كبيرين شخص ما كده هل خوف ما كان قوس هل خوف نقول بقى حتى انت انا يسوسار حتى انت انا يسوسار اوكي lafbaa lagu hoosayaa laf daasni حتى بس كحية تمس أنا ما حيتم يوم قف إسلام أنا هاي أشهادنا يا مسلمة قرط مرة معايو ما الله بلاي أنا مسكو عايزان أنا الله الله إنك ورا السلام عليكم أنا يسوقو عرض انت انا يسوقو نينا اسكو شيغي السؤال بدي ويدي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والله وياب يا عبارة وياب يا عبارة الصومالي ما تسمع هذلسو يا الصومالي ما تسمع هذلسو وياب يا عبارة وعن لي مركا الصومالي الآن كل تبع ناجحان وحالي يابا إن استد كودي كورقبين قلبي isku soo xireysaa saan u hadlaysaa laga yaabaa waalidkeeda iyo dadkooda inaysan ka warqabin waxaan dhihi lahay markaan waalidiinta reer Somaliland war dib iskugu laabta war guryihiina gaalnimaa taalo war dinka baxb ayaa taalo war hablihiina gabdhihiina hoos u eega oo waxay ku sugan yihiin bal ogaada saan nololna ma aha dad saan diintii yani ugu gafayo iyo rasuulkeeni sharafta badan saan ugu gafayo sallallahu alayhi wasallam ya ayaa guryihiina joogo haddaad ogtiin iyo haddaydan ogeynba waxaan leeyahay waalidiinta reer Somaliland hoos iskugu laabta oo hablihiina iyo dhallaankiina bal howlahay ku jiraan iyo waxay hayaan iyo dhaqamadooda sida uu yahay bal hoos ha loo dhigto dhammaantood waa reer Somaliland si u hadlayaan waa aragteen hargeysa xaafadda belaan ku nool xaafadda belaan jooga ayaa iimaan kara ay leeyihiin waxaan leeyahay marka walaalayaal Somaliland saas ayaa taalo coldoon wixii lagu xiri jiray waxyaalaha noocan oo keenta ayuu ka hadli jiray iskuulkii abaarsa sidee uga hadashay howlaha iskuulka abaarsa yaalana waa noocan oo keenta Somaliland waxaa taala marka gaalnimo cad ayaa taalo waxaan leenahay culimada Somaliland ku dhaqan war culumooy war waa guryihiinii wax gaalnimada lagu haayo oo saan looga soo hadlayo waa guryihiinii aqaladiinii hoose weeye waa dhallaankiinii iyo yacni ubadkii aad dhasheen weeye wax saan u hadlayo war dib iskugu laabta meesha diintii waa reer Somaliland waxaa u moodaa dhallaankoodii yaa dhallinyaradoodii inay diintii ka sii wada baxayaan ayaad moodaane war culimmada Somaliland ay diinta sii dabaqabta war dabaqabta diinta war waa u jeedaan naagahan siday u hadlayaan war diintaa la dabaqabto please waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan inaad sii sheergareysaan oo Soomaalidan aad gaarsiisaan ilaah baan ka magan galnay waqtigaan la joogo inaan nidhaahno gaal ayaan ahay diintii waa ka baxay oo rasuulkeenni aan cayno subxaan allah ilaahan ka magan galnay waxaan leenahay gabdhahaasna ilaahay soo hanuuniyo iyo qof kasta oo maanta diintii inuu yani ka baxay ama rabo inuu ka baxo ilaahay xaqa ha fahansiiyo war diinteenna diin ka macaan wallahi inaysan jirin diinta xaqa ee lasoo diray ilaahay agtiisa ka timid weeye iska dhaafa cadaab ayaa ku mudanaysaan war ka jooga walaalayaalow war ka jooga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu